بسم الله. maanta waxaan ka warrami doonaa cashirkan ka warramaya baaniska gubashada qalalan iyo scald oo ah gubashada qoyan waa dhaawac soo gaadho maqaanka kaasoo baaniska sababo dabka iyo waxyaalaha la halmaala halka scaldka oo ah gubashada qoyan oo sababo waxyaalaha uumiga kulliga biyaha kulul saliidda kulul waxyaalaha kale la halmaala haddaba qofku markuu gubto 3 stage buu maraa oo la yiraahdo first degree gubashada heerka koowaad second degree gubashada heerka labaad iyo third degree gubashada heerka saddexaad qof kasta oo gubto waxaan ku aragnaa calaamadaha soo socdina keegana red skin maqaarkiisa casaada bar qofka yeesha biyo fadhiisino maqaarka oo dhilma ama maqaarka oo isku dhegdhega oo wax cad oo noqdo isku dhegdhega qofku markuu gubto waxa ugu horeeyay sameynayna waxa way meesha uu gubtay ayuu ka saareynaa ama area-dii uu ku gubtay qof ka saareynaa waxaynu qaboojinaynaa meesha gubtay inagoo inta badan isticmaalina inaan ku shubno biyo xagga sare ka soconaya ama biyo soconayna ku shubeyna kuna wadayna ilaa muddo 10 daqiiqo gaaraysa haddaba muddada aynu ku wadayno qofka biyaha waan ka ilaalinaa inaan marino saliid subag iyo wax la halmaala inaan marino ka ilaalino haddii qofkani uu khatar u yahay waa inaad markaa caawimad dalbataa dhaawac weyn haddii uu leeyahay ilmo yar haddii wajiga ka gubtay ama gacanta ka gubtay ama lugta ka gubtay waa inaad isla markiiba caawimo degdeg ah dalbataa si qofka isla markiiba dhakhtar aad u geyso haddaba waxyaalaha iska ilaalinaysa waxaan waxyaalaha dhiiqada inaad marisid saliida inaad marisid subag iyo wax la halmaala oo iska ilaalina because of waxay ku keenayaan caabuq bay nabarka ku keenayaan waxa kaliya taas sameyn kartaa haddii aad guriga joogtid waxaad ku duubi kartaa bac yar oo nadiif ah ayaad ku duubi kartaa ama maro nadiif ah ayaad ku duubi kartaa waxyaalaha kale muhiimka ah aad sameynayso waxa kamid ah qofku marka uu gubto xadeegaysaa heerka gubashadiisa haddii gubashada heerka waa tahay waxa lagu arkaya meesha ay xasaanaysaa ama barabara cad yeelanaysaa qolofna ma yeelanayso horena iskaga bogsanaysaa haddii gubashada heerka labaad ay tahayna aad bay xanuun kulul tahay qofka cabaad ma joogi karayo oo gubashada ugu xanuunka kulul leh iyo fadhiisinana walaad waxa iska ilaalinaysaa biyo fadhiisinada aad farxisid haddii gubashada heerka saddexaad ay tahayna wax isku dhegdhegaya wax isku gubanaya baruurtii maqaarkii muruqii wixii dhan isku gubnay lahayd qofna wax ma laha gubashadana waxa uu baahan si dhaqso in loo daaweeyo ay halis ay qofku keeni kartaa markasta oo qofku gubto waxyaalaha muhiimka ah xasuusnaanayso waxa kamid ah in aadan marnaba qofka noocaas oo kala aadan ilaawin in qofkaas uu baahan yahay haddii uu shoogo in la daaweeyo oo faleebo lagu xiro هذا وحيا لين حسوسنا نحن كميدا مركز تينا دكان كفوي سام ماشى وكوكبتي سيدو كلينا ماشي بيا قبو وصعونيات كشبطة هذه حالة أي حال استعيني إن الناس لمركب عاومات البطة يقف نختار كيس لمركب اللوكيو وحيا حسد حين أردنا إنه وحيا لا يقومهم سنة مركز تينا حسوسنا عنينه هذه يقف وشوغنا حبوب هي بين وباها نهاي إنفليبون يحيا الله مدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته